السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن حكسده هل كان كلام الله ينا وحكسده وفيشيال إن شاء الله وحى النص السعودية ونسل صوت الماني أما أن ما رتاي عوان كرا أن قصر لجني كم مهما هو الصومالي ده دحدة أوقع عنسن هذا وحى نسل صوت لجسني أما نسل صوت شجني شني طبعا كم ده كم مهما هو الصومالي ده دحدة أوقع عنسنا إن شاء الله ما أنت نوحن كحجين دونا شنت حكتو سلا باتنا كأي نوع دعوة وين وهرتو سقال بقولي سديت ما هود هدي ربي هال نوع نقدنا وحن اسكت يدونا إن المارتة ما أنت تطبق أنا هل كان كوسو بنيجي إن شاء الله ما أنت ما ماذا كوادي يعني قبل لابينا كنا بيجي لمرك اللي حيتو بناد وحى إلا هاي أديكو النبض لبرارة بلوي كاري لما يراه أديكو النبض لبرارة بلوي كاري لما يراه وجدك يدلوا ما ماذا وحويان adigoo rabbi subxaanahu wa tacaala uu kugu manaystay ama uu kugu galladay nabad iyo barwaaqo iyo inaad maaragtay balaayo aad u yeerato ood dhibaato kiciso ood colaad abuurto oo ma garanaysaa aad iyo aad maaragtay aad u dhibaatayso ummad kale nabad qabta ama aad sheegato maaragtay nimcada Ilaahay ku sii waxaan hayn oo markii lagu yiraahdo seeta caafimaadka aad tiraahdo ma aniga tabcan baan ahay ma seexday meel kasta ay jaban iyo waxaan cunama haystay naf baan hayo maxaan haystaa dadku waxay moodaa inaa waxaysay halkaas aan u baqtiyay iyo wax maaragtay oo san maaragtay ku sugnaa qofkaas hadii jeer inuu sheego waana wax laga fiican yahay maamaada ujeedkeedii dulucdeedana waa sidaas ayada ah oo hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nabad iyo barwaaqo iyo baraaro ku siiyay balaha u yeeran oo markaas waxaadan ku sugnayn inaad sheegato waa wax laga fiican yahay dulucda maamaadana waxaan filayaa inaan isla fahanay maamaada xigta kala beega lambarka 17aad waxa ay leedahay adigoo harsan waaye ma lagu soo hoyaaday ujeedka iyo dulucda maamaadana waxa weeyaan adigoo dhibaataysan oo xaalad adag ku sugan oo wax aan haysanin oo ma garanaysaa jawigu uu aad kuugu xun yahay in uu maaragtay kugu soo martiyo ama uu maaragtay ku yimaado qof ehelkaaga ama ehelkaaga ka baxsan oo wax kugu tuhmaayo oo adiga wax ka rabo adigana aadan maaragtay waxba u awoodin maamaada dulucdeedana waa sida ayada ah maamaada xigta lambarka 18aad waxay leedahay adduun daris aakhirana camal ujeedka iyo dulucda maamaada waxa weeyaan adduunku dariska wanaagsan in badan waxa weeye wuu ku saameeyaa oo wuu ku sabood gareeyaa oo had iyo jeer wuu ku caawiyaa muxuu kugu caawin karaa haddii aad liidato oo tabaryar tahay wuxuu kugu dhaamo kugu maaragtay kugu caawiyaa haddii aadan ahayn qof maaragtay dhaqanka iyo haddii aad ku idmaayo diinta iyo waxyaabahaas ku wanaagsan haddii aadan ahayn oo dariskaaga uu daris wanaagsan uu yahayna inta badan waxa weeye waxaad ka qaadanaysaa tarbiyo diin iyo wax walba wanaagsan aakhira camalna waxa laga wadaa haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala markii maaragtay camal wanaagsan aad suubiso wuxuu kugu ajirsiyaa ama uu kugu bedelaa maaragtay janno iyo maaragtay wax aadan naftaada maaragtay weliga aan ku soo dhicin oo indhaha aysan arag qalbiga bini aadamkana aan weliga aan ku soo dhicin ayuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala halka kugu diyaariyo janna la yiraahdaayo janna hadii aad gashana hadii wax kale u baahan tahayba ma jirto dulucda iyo maamaada ujeedkeedana waa sida ayada ah maamaada xigta lambarka 19aad waxay leedahay adduunka waa harka labadiisa gelin dabcan maamaadaas waxaan filayaa Soomaalida boqolkiiba 99 inay wada yaqaanaan macnaheeda iyo maaragtay halqabsigeedaba inta badan inay isticmaalaan waana maama xaqiiqo fadhida dhabtii adduunku waxa weeyaan adigu kulama dhalan mana aha wax adiga aad gacanta ku haysato haddii maanta aad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nimco iyo baraaro uu ku siiyay oo aad wax haysato ma garanaysaa beritoole ma haysan doontid oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa ka qaadi kara hadii uu kugu talagalo haddii aad maanta dhibaataysan tahay oo xaalad adag aad ku jirtana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu kugu bedeli karaa khayr iyo maaragtay baraaro iyo waxaadan filinaynin iyo nimco adduun inaad ku dhacdo haddaba waxa weeye ujeedka maamaada iyo dulucda haddaba waxaan filayaa in badan inaad aragteen dad aad iyo aad faqro u ahaa maanta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala intuu wax siiyay taajiriin ah iyo kuwa taajiriin ahaan jiray oo maanta aan maaragtay wax Ilaahay untay oo haysaan aysan jirin ee faqiira ee dadka masaakiinta oo tuuqsanaya ku biiray ama maaragtay inay ku biiraan halis ugu jiro ujeedka iyo dulucda maamaadana waa sida ayada maamaada xigta kuna beegan lambarka 20aad waxa ay leedahay adduunyo in la wada joogo shidaad baad diiday aakhira in la wada joogana camal baad diiday dulucda ujeedka maamaada waxaan ka soo qaadanaynaa hadba sida aad aragtay in badan waxa weeye waxa jiro qof aad jeceshahay inaad la joogtaan isla wada sheekaysataan waqti isla qaadataan laakiin aysan saamaxaynin
وأصيغنا مارتاي ظروف يدن هيستو أدينا ظروف يدن هيستو ويسن سامحين إن مارتاي قفكاس أدسكو ميل وذا جوكتان أو لغا يابا إن قفكاس wax jaan saba أدسكو هلو ويدان آخر اللي وذا جوغنا عمل باديدنا معناه روحا ويان هذا إنسان كإلهي سبحانه وتعالى مركي وسميستي والدنيا أنه كاني أو قف قانجارة أو كدجي أو جريت كمارتا إلهي سبحانه وتعالى إنه مارتاي أما أو أطيعه أما أو كفريه وجاره قف كستروح القرآن كذا ليه إنه مارتاي إلهي سبحانه وتعالى صد أو وطلق عليه النبي عليه الصلاة والسلام إنه وصل ليه إنه إلهي سبحانه وتعالى أو أطيعه وضد النبي أنه أطيعه قفنا وحقوف مارتاي أسخرا إنه مارتاي شيطانك وأطيعه وإلهي سبحانه وتعالى أمركيس وديده وشيطانك أمركيس وكحبته سيدنا مارتاي قفكاس وإلهي أبو عاصيه هدي لبضع قف وحويان إلهي سبحانه وتعالى أكيد سكمنا سمنان دونان آخرنا دي مارتاي اسكمير جوج مايان وهدي فريق في الجنة وفريق في السعير باليري قفكاس وحوي ماشي وشقيستي ونبو هذايا وجدت كدلوع يا مامادنا واسيدا أيضا ما أنت مرتدي يا مامادنا إن أنت صيام كوسو كوبينا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى وحن كل مدونا مقالك حاجة فضلا هدية نقول صوتها هي جنرال كأنه كوسو بير حوكس أوفيشال سبسكرايب لايك أند شير كومنت تجنا وحاول وحنا جمعنا وفردها سنة وصو جود به هدي مارتها أنا قد دعواني في فيسبوك لينك كوريان كوسو اللي قدونا هكا كتعرها هدي يوتيوب كنا قد دعواني سنة ويكوسو خيرنتها هي أنت المقالك حاجة كل مدان واحد اللي هي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.